agaasimaha guud ee cisbitaalka degmada Wajaale iyo qaar kamid ah shaqaale weynaha kala duwan ee ka howlgala cisbitaalka guud ee degmada Wajaale ayaa maanta adeeg caafimaad oo bilaasha ka sameeyay xaafadaha kala duwan ee ku yaala degmada ganacsiyeedka Wajaale gobolka Gabiley. adeegan caafimaad ayaa la xiriiray isla markaasina dadka laga daweynayay xanuunka kaduudyaha oo maalmihii ugu dambeeyay farabaas ku hayay shacabka kala duwan ee ku dhaqan degmada Wajaale. waxaana adeegan caafimaad la gaarsiiyay shacabka kala duwan ee degmada Wajaale ka warbixiyay Dr. Ridwan oo isagu ah dhakhtarka horkacay adeegan caafimaad. agaasimaha guud ee cisbitaalka degmada Wajaale iyo qaar kamid ah shaqaale weynaha kala duwan ee ka howlgala cisbitaalka guud ee degmada Wajaale ayaa maanta adeeg caafimaad oo bilaash gaarsiiyay qaar kamid ah xaafadaha bariga ee ku yaala degmada ganacsiyeedka Wajaale gobolka Gabiley. adeegan caafimaad ayaa ujeedadiisu ahayd isla markaasina dadka xaafadahaasi laga daweynayay xanuunka kaduudyaha oo farabaas ku haya qaar kamid ah xaafadaha ku yaala degmada Wajaale. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay isla markaasina ka warbixiyay adeegan caafimaad la gaarsiiyay dadka uu soo ritay xanuunka kaduudyuhu. Dr. Ridwan oo isagu ah dhakhtarka horgacay shaqaalahan gurbadka caafimaad gaarsiinayay dadka ku dhaqan xaafadaha bariga ee uu soo ritay xanuunka loo yaqaan kaduudyuhu. waxaana uu Dr. Ridwan sheegay inay maalmihii ugu dambeeyay ay iska soo dabadhacayeen dadka uu soo ridanayo xanuunka kaduudyuhu isla markaasina ay shaqaale weynaha kala duwan ee ka howlgala cisbitaalka guud ee degmada Wajaale si weyn ula tacaalayeen dadka uu soo ritay xanuunka kaduudyuhu. waxaana uu shacabka ku dhaqan degmada Wajaale u baaqay inay la soo xiriiraan marka ay dareeraan xanuunadaas iyo xanuuno kaleba. cisbitaalka guud ee degmada Wajaale isagu markastaba heegan u ah caalida iyo sababtan bixinta adeega caafimaad. waxaana uu yiri mad iyo jir xanuun fara badan kaasoo loo badinayo inuu yahay kaduudyo. taas waxay sababtay in anaguna ku booqano deegaanka ugu dhulkii xaafadihi ay deganay guriga ku booqano aanu ka soo u kuurgalno xaaladoodii aanu daaweynaya adeeg caafimaad u fidino wixii kale ee aan xaafad qaban karin aan cisbitaalka keeno. anagu ah qayb kamid ah shaqaale weynaha cisbitaalka degmada Wajaale aanu u baxnay outreach ama field saanu uga kuurgalno xaaladda dadka ku dhaqan degmada Wajaale. taas oo bariyihii u dambeysay ay dadku cisbitaalka noogu imanayay soo riteen xanuuno la xumad iyo jir xanuun fara badan leh. taasoo cabasho badan dad badan ay maadeen dadkii oo aan la soo qaadi karin ambalaaskii kale ahaan bulshada wada gaari karin iyo dadkii oo aad u fara badan oo kolba aan meeshii iman karin. waxa maanta aanu go'aansanay maamulka uu noo sheegay inaanu dadka booqano. dadkii waanu booqanay xaafadahoogaana ku booqanay dad aad u badan oo xanuunsanaya. waxa halka nooga soo baxday in baahida ay dadkaasi qabaan ay aad u ballaaran tahay. waxaan isku daynay inaanu gaarsiino adeeg wixii aanu qaban karnaa dadkaasi maadaama oo xanuunkani uu badanka yahay in loo daweeyo qaab symptomatic treatment ama loo daweynayo si guud loo daweynayo. waxaanu dawooyin baan u qaadnay dawooyinkii baanu siinay dadkii. waxa kale oo wacyigelin u sameeynay dadkii in xaaladda xanuunada markay saasoo kale yimaadaan inay dadkii kala fogaadaan maadaama xanuunka la COVID-19 wadankii ka jiro oo aan la kala saari karin xanuunadan imika jira xanuunkii kale COVID-19. waxaanu isku daynay markaasi xanuunkaasi oo ay dadka u badin inuu yahay kaduudyo inuu yahay inaanu maxay ahayd aanu dadkii wacyigelin ka bixino aanu sheegno calaamadaha uu lahaa xanuunka COVID-19 maadaama shaqaale caafimaad nahay mas'uuliyad waxay naga saaran tahay xanuun kasta oo ka jira inaan ummadda u bayaamino iyaga aan anaga shaqadayda ay tahay inaan calaamadaha xanuunka COVID-19 ka u sharaxno iyo sida loo kala fogaanayo iyo waxyaabihii sida looga hortagayo dhammaan sharaxaad badan u bixinay. halkaas waxaa nooga soo baxay bulshaduna inay bulsho aad ugu baahan wacyigelin ballaaran u baahan maanta kuma soo koobi karno. si kastaba ha ahaatee maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxa si weyn shacabka ku dhaqan degmada Wajaale ay uga cabanayeen xanuunka kaduudyaha oo farabaas ku haya. Qadar Cabdi Cabdullaahi Televisionka caalamiga Baddacas24Tv degmada ganacsiyeedka Wajaale gobolka Gabiley. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. tayo waa Telesom. inay Somtel bilowday abaalmarino cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay. waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave-yo, TV-yo iyo moobilo dhammaan shirkadda Samsung ah. account lacagi ku jirto oo banka dahabshiil ah. dalxiis aad ku degto hoteelada Damal iyo waliba
10 gaadhi oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaadhayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidhmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guulaysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qaybgal macmiil oo ka mid noqo guulaystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111